Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada shabakada Sayax Teach oo mar walba idiin soo gudbisa cilmiga teknolojiyadda. Waxaanu casharkan kaga hadli doonaa haddii Ilaahay idmo sida flash looga saaro fayraska. Inta badan waxaanu aragnaa flashteena markaynu kombiyuutarka gelino in ay flashtu ay naga noqoto shortcut. Tusaale ahaan waxaanu u jeednaa hadda flashteeni in ay shortcut ay noqotay oo macluumaadkii uu ku jiray oo dhan uu shortcut isku bedelay. Haddaba sidee ayaan uga saari karaa? La soco. Waxaan tagayaa marka ugu horeeya ama waxaan isla qabanayaa Windows plus E, kadibna waxaan dul tagayaa hashta amaba drive-ka flashta ee ugu jiro fayrasku. Waxaan ka dooranayaa waxaan tagayaa view, kadibna waxaan dooranayaa option, waxaan kasii dooranayaa maxay view. meeshan ay ku qoran tahay do not show hidden files ayaan tigta ka soo qaadayaa oo waxaan tigta saarayaa show hidden files. Waxaan kaloo tigta ka qaadayaa hide empty drive. Waxaan kaloo ka qaadayaa kan ku xiga oo hide extension. Waxaan kaloo ka qaadayaa kan ku xiga oo hide folder merge conflict. Waxaan kaloo ka qaadayaa kan ku xiga oo hide protected operating system files. Afarta isku xiga markaan tigta waan ka wada qaadayaa. Ka u dambeeya markaan tigta saaro ka qaado wuxuu ii soo qorayaa message-kan. Waxaan leeyahay yes, kadibna waxaan leeyahay apply, kadibna waxaan leeyahay okay. Flashta haddii aan hadda eegno waan furno, waxaanu arkaynaa in fayraskii dhammaantiis uu ka wada baxay. Kadibna waxaan ka dooranayaa meeshan ku qoran trashes. Waxaanu aragnaa dhammaan fayraskii igu jiray kombiyuutarkayga inay halkan iga muuqdaan. Sidaas ayuuna igu nabad qabaa. Haddii uu kombiyuutarku ama flashtu ay fayras kale banaanka kaaga soo qabato waad iska dhil gareyn kartaa. Casharkaaga oo nadiif ah halkan ayuu kugu jiraa.